wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay heegan ugu jirtay ka hortagga cudurka coronavirus-ka ayaa wacyigelin ka samaysay garoonka caasimadda Somaliland ee Hargeysa Stadium halkaas oo ka socdo koobka kooxaha heerka koowaad kaasoo ay soo qabanqaabisay dalada dhalinyarada Somaliland magaceeda loo soo gaabiyo Soonyo. wacyigelintan ayaa qayb ka ah tallaabooyinka wax ku oolka ah ee wasaaradda caafimaadku ay hore u qaaday. midkan maanta ee wasaaraddu ay fagaaraha ku qabatay ayaa ah mid iyaduna muujinaya dadaalada ay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Somaliland ay ugu jiraan. haddaba wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland waxay ugu baaqaysaa shacabka si looga hortago cudurka coronavirus-ka inay qaadaan tallaabooyinkan. 1. in si joogto ah ugu faraxalato biyo iyo saabuun. 2. si aad u karkari hilibka kalluunka digaaga iyo beedka. 3. markaad qufacayso ama aad hindhisayso ku dub afkaaga ama sanka masar ama softi ama cududaada adigoo suxulkaaga laabaya. 4. haddaad yeelato xumad iyo qufac ha tegin goobaha dadka ay ku badan yihiin sida sariibadaha dugsiyada iyo wixii la mid ah si degdegana ugu tag xarunta caafimaad ee kuugu dhow. 5. haddaad qof salaamayso waxaa habboon inaad iska dayso salaanta gacan qaadka ah adigoo raacaya sunnaha nabigeena suuban naxariisi badbaada korkiisa ha noqotee oo qofka ku salaamaya salaanta islaamka. wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ayaa maanta kulankan waxay kaga badisay 3 gool iyo 1 wasaaradda horumarinta biyaha ee Somaliland iyadoo kulankii horena 4 gool kaga soo badisay hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland.